aryaadaha kale maanay beriga abwaan kaa dheeriyo muddo xanuunsanaayo lugihiisa ku socdaa yimidoo ilaahay noo keena asoo caafimaad qaba waxaana soo xusuusnay heestiisi jacaylka aheedoo aheeday aga caashaqaygow awowgii la naariyow midhaa eega dabadeed oodahaynu kala rogan war cabdillow xiita waa ka xasuus dheer tahay ilaahay baa mahadle haddii abwaanki soo caafimaaday kalamaanoo waa idin salaamay salaantoo dabadeedna mid yar baa idin su'aalay saddex abaaraa jirta abaartii sima waa la soo dhaafay yaa amaw abaarti dabadheer sheegaahe war gabadna cunaa jirta abaar ligaa amuu sheegayaa wuxuu sheegayaa waan u malaynayaa milfa cuna iyo masaare karsi war maya wuxuu sheegayaa bakayla qaladkii war aana heloshantan usi sheega aniga goradi talaada garaskiya laare maduun eraaniw buush weelkan buuy eraaniw war warkaan naga dhexgelinay anigu saddex abaarood baan sheegay intaasaad sheegteen oo dhan ma sheegin waxayna kala yihiin rag abaartii waa arrin xumo dumar abaartood waa ubad la'aan geel abaartiina waa ilka la'aan rag abaartii hadday arrin xumo tahay ee ba'gootanna haysa waa tahay war ma ahayna waxaa la yidhi aqool xumo irmaan xumo ka daran maadaa meel geeyaha mihiyaad waaga joogtahay war maye waa rag aamusay iyo riyo aamusayba reerkoodii gaba aryaa waaga abaartiyaad joogtaa eri qayladiina xabad ku fali mayna shib naga dheh war mayleeray misgoroto miswarsati kuunga leeri warnimada waxaa la yidhi rati daba go'ani laabtu ka dhibi dhistaa marka haddaan tala weynay gacmahan ka adeegnaa ninba wuxuu doonu sameeyaa walfayli sheegay laakiin maahmaahada eedinka ku dheeli mayleeray gurbigii duban lahayna laabta ka shabdhowde warnimada waxaa la yidhi soomaalida la kala jeediye qaar badhan u jeedo oo dalkoodii laga jeediyo dhoofka lagu jeedshay qurbahay u sii jeesatana weli ka soo jeesan oo qabiilka lagu jeediye qaran ka sii jeestay cadowguna ku soo jeedo oo hoos isugu jeeda ujeed iyo ka jeed ma laha iyo dhanay ka jeedaaye soo jeedi eebow dadka ammaanku kala jeedo war adigu xaggaad u jeedaa somalilan ujeeddo way leedahay waranna waxaan dhihi lahaa jalaladii haddii gubatay iyo midhihii jawdheertu jilabki iyo maraagii haddii ololku jeex leefay sheegada cadaadii haddii qaranra jiidayso jaarinkii hadduu qodaxda dhigay sideedkii aan maraynay jismi wada walaalaa haddii laysku jaan qaaday war jiirkiinna inaan eebageni jahannamo qiiqi jidka nabadda ummaddaan u fura jiir ku kala oodan siilayda ay soo jiidatiye jawga maansada waxaan jirin haddaad jariso oo lagu jeclaysiiyo jabkaagana damacu kaaga dhigo joorad nuuraysa jamashadu waxay kaa ridaa jar iyo booraane jira weeye mas-uul jagahayo xeerka jebiyaaye ha jarjarina waa jilaxsan yahay xadhiggaa jiideen war jiilaydii baa soo jiidataye jabkaaguba waa jabuuti tago adaan joogsan jeer ha lagu dhigo aryaada jiinlaydiinna soo jiidatee abwaandoodaan allahow naxariistaa wuxuu yidhi nin walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waaye talow yaa isoo qaban haddaan jawhar koru dhaafo warnimada war ma haysaane wasiirka gaashaandhigga ingiriiska markuu muqdisho yimid kadib waa kii hargayso tegey amarna kama uusan qabin inuu hargayso tago dawladda nabad iyo nolol hadda waxaan maqlay in jaalle loo taagay roosadiina ku xigto uu mari doono meeshii safiirkii maray UN-ka hadda warkaa run ku suga walaadaalo sheekada gudhuudu ay isugu sheekayso run raad kuma laha dowladda ingiriiskana waxaanu siinay saldhig military marka waxaan ishaba loo marmaranayn inuu ingiriiskuna ictiraafayo si degdeg waliba noo ictiraafayo ee idinku run ku suga warnimiyow guddoomiyaha baarlamaanka madey mursal mayliin sheegay madawiinayii koldhawaydii lafgaraan haytay baydhawo lakamagacaabi inoo haylee masaar leeray usuna diidi warka kan ena run ku sugo war calay masaarka madaxweynaha cusub ee puntland toddobaadka soo socda ayuu dhacayaa baa la yidhi madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo baarlamaankuna waa ka qaybgelayaan baa la yidhi run ku suga war calay masaarkii madaxweynihii ka horreeyey lafta gareenaaba lagu leeyahay maxaa loo hormarinayaa calay masaarka madaxweynaha puntland ma labada maamulaa kala mudan run ku suga warkaa war madaxweyne lafta gareen wasiirka arrimaha gudaha ayaa u hambaliyeeyey laakiin madaxweynaha puntland muxaafad iyo mucaarad madax iyo majo midna uma kala harin waa loo wada hambaliyeeyey war waxaan maqla madaxweyne xaaf sida u dhuusa mareeb u tegay tuusbax dheerow qaato cawo iyo maalinba waa werdiyahaa la yidhi cawo dhoweedna doorashada puntland markay dhacaysay waa kii ka duceeyey cawadiiyoo dhanna wuxuu ku qilaaweyhaya ilaahayow cabdiweli soo celi hadda xaaf ducadiisi lagama aqbalin meeshuu ku dambeeyo taasna suga
warnimada waxaa la yidhahdee waxaa whatsapp group laha madaxda maamul goboleedyada waana markii horraysay lifti ka qaatay shariif xasan baa ku xigsaday oo lifti kale ka qaatay xalay oo u dambaysay cabdiweligaas baa lifti ka qaatay saakayna asayid axmed madoobe iyo ugaasxaaf waxay is weydiiyeen keebaa gruubka adminka noqonaya war gruubka hadday laba keliya ku soo hartay may baasto ku soo daraan xaafbaha dhibsade warriyo gruubka muu muuse biixi soo galo koonfurta ha dhibsatabe horta anigu idaacadahan xamar ku yaallaan bannacay inaan iska wada danshano waaba rabaa 4 maalmood waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo afgooya tegaaya hadda warkooru runku sidou naqday xaa laga dhegeensadaa arcabdulow beenbadnidaam afgooya 4 maalmood loo socdaa 2 saacadood lagu tagaa war anigu idaacadaha shaladii horaan iska demiyey waxay yidhaahdeen nin kenyaatiya oo baadariya oo isqarinaya ayaa muqdisho diinta masiixiga ku faafiya waxay moog yihiin xamar oo talyaanigu xukumi jiray oo kiniisado badan ka sameeyey oo ku ooli jireen hal qof oo diinta islaamka ka baxay laguma hayo taariikhda marka nin kenyaatiya oo isqarinaya muxuu ka bedeli karaa muxuuse ka qaban karaa war adigu shaladii horaan iska demiye markaad leedahay warkaas andalusa sheegtay idaacadda shabaabka ma ayadaa dhegaysan jirta war andalus iyo andriis ma kala aqaan aniga fmkaan shitaa aryaadhaha magaalada muqdisho waagi dagaalka sokeeya ka socda koonfurta iyo waqooyigaa loo qaybshay qad cagaaranaa u dhaxeeyana waa tii la yidhi haddaan magac cusubaa furdug soo yidhi waxaa loo kala qaybiya waqooyiga kuuriya iyo koonfurta kuuriya inta u dhaxaysa ee dawladdu degan tahana waxaa loo bixiyey qaraxlaan war niman yahow hool ku yaalla ayraboorka agtiisa oo ayaantan lagu qabanayo bandhig faneedyada ilmaha jeegada xiiran oo heesaha falaashka ku wataa ay soo bandhigaan waxaa lagu qabanayaa muxaadaro shiikh weyn oo caanihi uu qaban doono shiikha waxaa la yidhaahdaa sheekh maxamed ibraahim kenyaawi mawduuca muxaadaraduna wuxuu yahay walaal cafi walaalka waxaa kaaga daran heese falaash ku jira haddaad $20 ku bixi jirtay muxaadarada shiikhu waa lacag la'aan ajirna kuu dheer waana maalinta sabtiga haddaad wax maqlaysaan war cafi walaalka war xun maahan balse kuwa wax qarxinaya lama cafi karo ma walaa kuwaas walaal kula ahaayeen waraabow ha la irshaanay war adiga walaalka cafi baa lagu yiri cafi walaagiisin dabashu badan ogdiga la siinay fi kore war ictiraaf baydi kama hayne maxaan idin cafira war aniga cafis bay iga yihiin cidi waxay geysatay cidi waxay geysatay waa cafiha tabaraa ku ciisay ma cidi ku caloosha kugu dhifatay cafis leh horta aduu cafis ma leeyahay waa hubaata war adiga uqdad ba caloosha kula buuratay adiga calooshu uqdad kula buuratay waxna ma aqli isu yeela oo dalkiina u fakara war dalkaani dad u shaqeeyo raba إرتك هلا قاطوبة